ماذا استمعنا لكي أرسلت التوى أليدا أرسلت التوى وارين مرغي urkutaalada leh 28kii bishii December sanadkii hore waxaa qarax ismidaamin ah oo ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye ee Muqdisho qaraxaasi oo galaaftay nolosha boqolaal Soomaali ah halka kuwa kalena dhibaatadii qaraxaasi ka soo gaartay ay weli la daaladhacayaan subaxnimo Sabti ah saacaduna ay ahayd 7:00 subaxnimo ayuu dhibane Axmed Cumar Yuusuf ka soo baxay gurigiisa oo ku yaala deegaanka Aalasha Biyaha si uu maalinkaasi qoyska oo ka kooban 3 caruur ah iyo hooyadiisa si uu ugu soo shaqeeyo balse waxa uu la kulmay wax uusan filanayn xaafadan oo ka soo baxay oo subax ay tahay subaxnimo ay tahay wax ka dhigay amal waa soo kacay shaqo mari shaqadii waxa leedahay meesha maanta shaqo mataal la dhahay injineerka dhowr saac ayaan tuutuuyo wuxuu leeyahay shaqo meesha maanta shaqo mataal la dhahay sidii aan ku soo baxay meel kale liiga soo baxay marka meesha kale markii liiga soo baxay oo sii socdo ayaa baaburkii Ex Control oo joogo ayaa baaburkii kala celinayay oo baabur si kuulami sameeyaan si jidka ay u maraan marka aniga baaburkii hadan shaqadii hadan anoo liiga dharrooy nololmaadkiis maalintaas habeen kasta waa qaday wax aan haysto ma laha ma fahmino deena ku noolaay deena liiga qash badan liiga rabi waalidkaygan aniga wax iga suwaayeen ilmahana ujeedada aniga in wax iga suwaayeen macal qoyskeeya ma fahanti markii ilaas ay tahay hadan maalintii anoo ku fikirayo maxamedo shaqadii waan laga dhado jidkiina waa waxay yahay maxaa sameeyay harqada oo aalaada lama sheegay mogta dadkii jid loo furay oo kuwan laami sameeyaan ilaas ay tahay jidka baaburkii waa ka degi laba tilaab makan qaaday qadaxaan la kulmay marka anoo qadax aan la kulmay aan naxtin ku tan anoo hadan ruurtii iyo qoyskeeya iyo walaalay iyo familkii aan fikiray ayaa hadan qoyskii ayaa hadan qarxiyaan la kulmay naxtin ayaan la qaaday meeshii hadan lugta aan ku istaagay dhibane Axmed ayaa sheegay in markii qaraxa qabsaday uu dhaawacmay uu waayay daryeelkii caafimaad ee uu u baahnaa waxa uu la ooyinayaa sidii loola dhaqmay markii isbitaalka la geeyay jibi walaal waxaan dareemay in wadan dhibaatadaas aan la kulmay cid qaada waasi aan waay nin walba dadkiisu uu ordayo wala qaadariyo meeshii lugtiita waxa sameeyay ماذا استمعنا لكي أرسلت التوى أليدا أرسلت التوى Abu Cumar Yuusuf Qaasim oo ah aabaha dhalay Axmed Cumar ayaa sheegay markii uu maqlay in wiilkii ay ku tiirsanayd noloshooda uu ku dhaawacmay qaraxii Ex Control inuu mir daboolmay isla markaana uu ka soo lugeeyay beer ku taala duleedka Afgooye telefoon la isoo diray telefoon markii la isoo diray waa khaway telefoonka abaar laba saac ana war waablig way waa war mu way markaan soo baxay alaan qarash ma haysan intaan waa soo lugay shilin kun jeebkeem ku jiro waa soo lugay waa soo socdo markaan soo lugay waxaan helay macnaa dad oo meel iska socdo dadkii aan dhay walaalow aniga duruuftaas as wiilkii dhaawacmay haddaan isbitaal Madiino amartay as ku sugan yahay duruuf ay haastee bal wax isiyaan intaan ku dhameystiray bawran ku raacay dadkii waxay isiyaan lacag macnaa oo 5 kun shilin isiyaan bawrkiina waxa lagu raacaa 20 kun lagu raacaa kadib hadina macnaa waa la ii wacay intee soo joogtaa war ana waxaan soo joogaan dig feed maarta waxaan soo joogaa banaadir soo jooga waa soo lugay ana kharash ma haystay haleen meesha macnaa nin jawax xukumo jabkii badi wax isku jiro ana bagaaji haas maxaa isma biyo shibilka oo kuleel oo meelaha yeelo aan leey macnaa isii arrinta kale ee murugada leh oo dhibane Axmed uu inoo sheegay ayaa waxa ka mid ah inuu ku jiray dadkii loo qaadeeyay caafimaad dibadda laakiin faquuq dartiisa looga reebay safarkaasi waa ka mid tahay waxaan ka mid tahay koowaad labaad saddexaad ka mid tahay infaanti anoo been ku sheegay labaad saddexaad qof saddexaad ayaan ka mid tahay waliin bisir magacaaliga qoray waa loo qaadaa la caawad walaana gaasi waa loo qaadaa markii ma jajas dhinac maray ordinkan uu jabsiiyay haddii baan ay shahaadaan nin isbitaal Madiina ka shaqeeyo oo meesha joogo ay hal saac uu tuutuway war ninkan qaada uu qorin yahay ma qaadeen ninkan ma qaadeen uu qorin yahay sibirkiisa xisna waa qaaday maxna uu naay ma qaadeen ninkan jajas meesha uu dhinac maray alxamdulillah lugtii way urtay
هذا سيتا هذا تخطيرت وماشي اسكجيفا سيتا هذا وما واي واتحي إن أودو جيدان أحمد يوسف qoys kan ka kooban 3 caruur iyo hooyada dhashay iyo aabihii dhalay oo isaga hormud u ahaa isla markaana uu xooggiisa ugu shaqayn jiray maanta waxay la oonayaan inaysan haysanin wax ay cunaan isla markaana gaadiidkii u shaqaynaya oo ah Axmed oo xoog u ahaa cidana uu lugti ka go'an yahay qaraxii ex control ee afgooyana uu ku waxyeeloobay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo cid walba wax haysata iyo dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre iyo hay'adaha gargaarka bixiya waxay ka codsadeen ciidan inay soo caawiyaan isla markaana taageero ay u fidiyaan dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa in kasta wax bixinta Ilaahay iska leeyahay waxaan ka codsanayaa kulay way u jeedaan caruurteeda iyo waalidkeeda u jeedaan anigana way ii jeedaan dhaawaceena u jeedaan iyo meeshan ku noolahay waxaan ka codsanayaa gurmad degdeg ah inay ii fidiyaan oo nolosheeda maareeyo iyo waalidkay aniga si waxa ugu tarilay waalidkay anay u tiirsin hadda ma faantay hadda walaana been ku sheemay meesha hadda aan fadhiyo hashinka cunoon hadda dadka masaakiinta oo macna dadka meelaha degan ala isoo qaqaarumoyn sidii guri aan ku nool wax lagu siino baamno ku shilin had waalidkay jeebkan ku soo bixiyo waa kana ima dhaho waxba ma haastan wax ka keenay farayeen faqiir waxba ma haastan caalamka muslimiinta meel kasta ka joogan wiilkeena waqto caalamiinta meel kasta wiilkeena wax qabta wiilkeena rugtiisa خاص أهان عالمين مال كسر جوان مسلمين مال كسر جوان عالمين إنا إلهي معنا ويلك خبطان ويلك اسماعيل هذا بريسة سومالي كابل تي في مقالة مقدشة